kusoo dhawaada muuqaalkan oo aan maanta kaga hadli doono sida uu qofku markaasi internetka uga samayn karo lacag ama uu shaqo uga abuuran karo markaasi shayga la yiraahdo ganacsi ama wax kala bedelashada haddii aynu ka soo bilowno markaa waqtiyadii hore ee aanay lacagtu jiri jirin intii aanay lacagtu iman waqtigii hore dadku waxay wax ku kala bedelan jireen markaasi alaab uu haysto qofku oonu u baahnayn ayuu ku bedelan jiray alaab uu markaasi u baahan yahay oo dadku qaabka ay wax ku kala bedelan jireen waxa ahayd alaab markaa lagu bedelanaya alaabahaas wax lagu kala bedelan jiray waqtigaas waxay ahaayeen sida xoolaha nool hargaha shaaha kafeega waxyaabaha dhirta ah ee lagu darsado markaasi cuntada aynu cunno oo waqtigaas dadku ay wax ku kala bedelan jireen laakiin waqtigan la joogo dadku waxay wax ku kala bedeshaan markaasi waa lacag oo qofkii hadduu suuqa wax ka soo iibsanayo iyo haddii kaleba waxa uu isticmaalayaa markaasi lacag sidaa awgeed marka aad doonaysid inaad dadkii wax ka iibisid oo dadkii ay lacagtoodii kaaga bedeshaan shay aad adigu hayso waa inay jirtaa markaasi waxaad adigu dadkii siinaysid oo aad kaga bedelanaysid markaasi lacagtooda shaygaas waxa uu noqonayaa markaasi laba mid ahaan ama waxay noqonaysaa xirfad aad taqaanid oo dadkii aad u bandhigaysid oo aad baraysid amaba si kale aad ugu adeegaysid ama shaygaas waxa uu noqonayaa markaas alaab la taaban karo oo dadkii aad ka iibinaysid waxaan ku horeynayaa markaa qaybta koobaad ee ah adeega waxay tahay macnaheedu inaad markaasi bixinaysid oo aad iibinaysid adeeg aad taqaanid samayntiisa xirfadaas waxay noqon kartaa markaasi sida tusaalaan waxaa tahay macallin oo waxaa dadkii baraysaa xisaab science ama waxyaabo kale ama waxaa tahay programmer oo dadkii waxaad u dhisaysaa websiteyo applicationo iyo wixii la mida 5 sano ka hor markaan bilaabayay programmingka ama codingka waxay lahayd markaasi shay aad u adag oo aan la baran karin laakiin shayga iriixay waxay ahayd in programmingku uu yahay xirfad haddii aad si fiican u barato aad ku shaqaysan karto oo aad lacag fiican ku heli karto waxa kale noqon kartaa markaasi web designer photoshop social media manager graphic designer oo dadkii waxaad u design garaynaysaa markaasi muuqaalo ama xaysiisyo ama sawiro ama wax la mida xirfaduhu way badan yihiin markaas xirfad kastay noqon kartaa waxaan hadda ka soo qaatay uun markaas dhowr ka mida sida awgeed qodobka koobaad ama istabta koobaad ee aad qaadaysid waxay noqonaysaa markaasi inaad raadisid xirfad ay dadku u baahan yihiin adiguna aad isleedahay markaas xirfadda waad keeni kartaa oo waad baran kartaa dabcan xirfadahoo dhan isku mid maaha xirfadda ay bulshadu u baahan tahay ama cadad fara badan oo bulshada ka mida ay u baahan yihiin way ka qiimo badan tahay xirfadaha kale ee aanay dadku markaasi u baahnayn sidaa awgeed waa inaad eegataa oo aad markaasi barataa xirfad aad isleedahay dadku way u baahan yihiin waanay kaa iibsanayaan oo waxay kaaga bedelanayaan lacagtooda istabta labaad ee aad qaadaysid markaa waxay tahay marka aad barato xirfadaas waxa la gaadhay markaas waqtiga aad u soo bandhigi lahayd dadka kale adiga oo kaga bilaabaya markaas dadkaad aqoonta u leedahay sida asxaabtaada ehelkaaga dadkaad wada shaqaysaan iyo markaasi dadka kaa ag dhowdhow ee aad isleedahay way u baahan yihiin xirfadan aad baratay maadaama muuqaalkani ku saabsan yahay sida internetka lacag looga sameeyo tallaabada marka aad soo gaadhid marka aad intaad samaysid istabta ku xigtaa waxay noqonaysaa markaa inaad samaysatid platform meel aad ku soo bandhigi kartid xirfadda aad adigu markaasi baratay meeshaas waxay noqon kartaa sida tusaalaan Facebook Instagram social media kuu doonaba ha ahaado waa inaad markaasi meel kusoo bandhigtaa si dadku ay u ogaadaan oo ay kaala soo xidhiidhi karaan si aad markaas ugu soo bandhigto
dadka kale ee aanan markaa ku garanayn ee kaa fog ku nool markaasi magaaladaada ama adduunyada qaybaheeda kaleba. Stepta ugu dambeysay afraad waxay noqonaysaa markaas inaad samaysatid website yaroo fudud oo aad ku soo bandhigtid markaas xirfadaas aad taqaanid, aad ku soo bandhigtid markaas xirfadda aad baratay iyo qaabkii markaa dadku ay kuula soo xidhiiri lahaayeen ee ay kaaga dalban lahaayeen haddii ay u baahdaan wax la xidhiidha markaasi servicekaas. dabcan dadka qaar suurtagalu maaha inay samaystaan website, qof kastana markaas awood uma helayo inuu samaysto website haddii ay noqon lahayd kharashka iyo haddii ay noqon lahayd markaasi samaynta lafteedaba. sidaa awgeed steptan ugu dambeysa waad ka boodi kartaa, waxaad samayn kartaa steptii saddexaad ee aan soo sheegay ee tan ka horeysay ayaad markaasi ku dadaali kartaa oo waxaad isku dayi kartaa inaad markaasi page Facebook oo kale samaysid oo aad ku soo bandhigtid markaas halkaas beddelkii website-ka. haddii aan markaasi u imaado qaybta kale ama qodobkeena labaad ee ah kii aan hadda ku jirnay waxa uu ahaa markaasi adeeg ama service. qodobka labaad ee aan sheegay waxa uu ahaa inaad markaasi iibinaysid alaab la taaban karo oo aad ku iibinaysid markaasi internetka, digital products. qaybtan ugu horeyn waxaad u baahan tahay markaas inaad ka fikirtid alaabta aad iibinaysid ee aad internetka ku iibinaysid waxa ay noqonayso. ma waxay noqonaysaa dhar, ma waxay noqonaysaa kabo, ma waxay noqonaysaa buugaag, ma waxay noqonaysaa markaasi furniture ama alaabahan guryaha la dhigto, ma waxay noqonaysaa alaabaha ciyaalku ku ciyaaro, ma waxay noqonaysaa spare parties. yacni waxaa jira intaasoo shay oo fara badan, marka waxay noqonaysaa inaad adigu go-aansatid shayga aad iibinaysid adigoo markaa ku salaynaya baahida ay u qabaan dadka markaasi deegaankaaga ama dadka aad alaabtaa u diri kartid. kadib marka aad go-aansatid shayga aad iibinaysid waxa uu noqonayo, waxa la gaadhay markaas waqtigii aad stepta labaad waxay noqonaysaa markaas kadib marka aad go-aansatid shayga aad iibinaysid inaad samaysatid markaasi platform, website. qaybtan waxa shardiya markaasi inaad website leedahay oo way ka duwan tahay tii hore aan ka soo hadalnay oo qofku haddii aanu markaasi awoodin website inuu ku soo bandhigo social mediaha. laakiin qaybtani sababtay uga duwantahay waxa weeyaan badanka dadku waxay wax ka iibsadaan website-yada oo waxoogaa way adkaanaysaa in pagekaaga Facebooka ama meel kaloo markaasi social mediaha ka mid ah sida Instagram ama Snapchat inay dadku wax ka iibsadaan. sidaa awgeed waa lagama maarmaan inaad markaas samaysatid website. laba mid ahaan bay noqonaysaa ama inaad adigu barato programmingka oo aad adigu samaysato website-kaaga haddii aanad rabin markaas in lacag badani kaa baxdo laakiin aad waqti fara badan haysid, waxa markaa fiican inaad adigu baratid oo aad markaas samaysatid website-kaaga. inkastoo waqti fara badan qaadanayso laakiin haddii aanad lacag haysan waxay kuu noqon kartaa markaas choice wanaagsan, waxay kuu noqon kartaa markaas xal. dad badan waxay u maleeyaan markaas in programmingku uu yahay shay aad u adag oo aan la baran karin, laakiin waa shay la baran karo oo aad markaasi ku shaqaysan karaysid oo dadkiina aad beri karaysid. markaas haddii aad lacag haysatid oo markaasi aanad ka fikirayn lacag iyo waxyaabahaas, waxay noqonaysaa markaas inaad shaqaalaysiisid qof kuu dhisa website-kaaga. faa'iidada inaad qof shaqaalaysiisid kuu dhisa website-kaaga waxaa ka mid ah inaad si dhaqso ah markaasi ku bilaabaysid ganacsigaagii ama iibintii alaabtaas ay si dhaqso ah kuugu bilowmanayso. laakiin khasaaraheeda waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii aanad wax lacaga haysan, haddii aad doonaysa inaad si dhaqso ah suuqaagu u furmo, markaas waxaa kuu fudud inaad qof shaqaalaysiiso. dadka badankoodu marka ay steptan soo gaadhaan way ka caajisaan ama ka niyad jabaan oo faraha ay kala baxaan. fikrad ahaantayda waxaan odhan lahaa waa xaaladda ugu adag ama stepta ugu adag ee uu qofku waajahayo inta uu ku jiro markaasi journigan. laakiin waxa muhiima inaad maskaxdaada gelisid
in aanay waxna fududayn, wax jilicsan ama qaab fudud oo lacag lagu sameeyaana aanay badanka jirin. Sidaa awgeed, haddii aad doonaysid inaad shaqo samaysatid oo aad lacag internetka ka samaysid, waa inaad u dhabar adeegtaa. Ugu dambayn, waxaan kula wadaagay markaasi intii aan anigu ka garanayay qaababka internetka wax looga samayn karo. Haddii ay jiraan markaasi qaabab kale oo aad adigu isleedahay internetka ayaa lacag looga samayn karaa, waxa aan jeclaan lahaa inaad nagula wadaagtid qaybta commentka. Haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday, waxaan kaa codsan lahaa markaasi inaad like siisid si aan u ogaado markaasi in aad wax ka faa'iiday. Tan iyo intaan muuqaalka dambe ku kulmi doono, waxaan kaga tegayaa markaasi nabaday.